gobolku wuxuu ka kooban yahay 5 degmo iyo inta hoos tagta 5 degmo degmada Bayla iyo inta hoos tagta degmada Xaafuun iyo inta hoos tagta waxa ka dhacay roobab lagu diirsaday Ilaahay mahadi wax tarnaa markaan la xiriiray mas'uuliyiintii halkaas noo joogay degmada Rako qaybo kamid ah sida duud hooyo iyo Humbays iyo Qodax iyagana barkadihii kulli waa biyoodeen Ilaahay mahadis meelo kale degmada Rako iyo degmada Qardho iyo degmada Waaciye saddexda degmo roob yar oo tumaya dhogol buuxis la yiraahdo boorka nabay ayaa qabtay Ilaahay mahadis alxamdulillah sida aan xogta rasmiga ku hayno markaan la xiriiray deegaanadii khasaaraha uu roob u geystay ma badna intii wax yeelayna oo dad nafku waayna Ilaahay samir iimaan ka sii walana ehelkoodii qaraabadoodii hadda waxa noo soo xaqiijiyay reer togi biyo ku soo dhaceen toga carar toga xoor weeye waxa la leeyahay hooyo halkaas oo la helay ilmihiina la helay ay xambaarsanay hooyada waxa la oran jiray la yiraahdaa hodan ayaan la nuur lama hayo tog biina la tageen biina la tagay Ilaahay samir iimaan ka sii eheladoodii qaraabadoodii ilmihii ay xambaarsaneen waa halkaas meedkiisii baa la hayaa khasaaraha waa geystay oo nafta leh xagga maalka markii la yiraahdo waxaan la wada soconaa xooluhu inay tabar yaraayeen waana dareemaynaa xoolaha wax waa dhinteen sida naloo sheegay 20 neef iyo 30 neef iyo waa la sheegayaa hadda reerkaas oo kale baa wax degal dugmay naloo sheegay Xaafuun oo kale saas oo kale markii hore wax yiraahdeen dad baa la waayay laakiin dadkii waa naloo soo xaqiijiyay inay meelo gabiya galeen haddana nool yihiin baa naloo soo sheegay xoolahana saas oo kale waxba baxay laakiin Ilaahay mahadis wax dhib oo saa u weyn lagama soo sheegay degmada Xaafuun iyo degmada Bayla inkastoo xoor ay hoos tagto degmada Bayla meesha labada hooyada iyo ilmaheedu ku nafwa bandar Bayla waan la hadalay mas'uuliyiintii way jiraan baddu inay xoolo soo kacday oo guriyo biyaha galeen alaabadii wax kala tageen laakiin wax dhib iyo guriyo ay duniyeen ilaa aan kana lama soo sheegin markaan la xiriiray mas'uuliyiintii halka joogtay gudoomiye oo kale horeyna waan uga dignay haddana waan u digaynaa dadka jilaabatada kalluumaysatada ah iyaga iyo agabkooduba qalabkooda saxiimadooda iyo agabkooduba inay inta roobkana jiraan ka dheeraadaan